مالمها أدونك كصامرة مالمه أوقع للسنة يا كصاهي إلهي باكو دارت والفجر وليال عشر ليالي العشر طبعا كإلهي أوقع دارتي وسجوني أوقع دارتي مالمها كله يهبين ذا كله وحويان أهمية أركاس أولية وين سوقوريان أهل العلم وين يهين طبعا كان معلومات بشهادة الحجة وصهرين إلهي وحول ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات معلومات ولا يقان إلهي إليه حسان معلومات معلومات كوا معلومات إن صحيح نبينا وحي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر مجران مالمه عمل دحدود الله سميه أو وناكسن وكفض لبدنيا إلهي حقي سلوغا قلقعي البدنيا مالمها يقع صحابة السؤال بويدية ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد ميون المالمهان كفضل بدنين مرقاسا نبي يري ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد أنا مقاريو حلقه في مركز لغا سوريو إلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ننبحي نفتيسي مالكيسي لبدا جهاد كجيي wax ka soo laabtana ay jirin maalkiisana waa ku gacan galay asaga naftiisana waa ku gacan gashay ninkaas fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaa gaari kara maalmahan iyaga wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ma min ayaamin a'zam 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amal fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr maalma ilaahay agtiisa ka weyn badan عمل الله سمي اللوجة شعل بدن يهي مشير مالمها فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد مالمها نحن ذو وحب لسان ذكر إله تكبير الله أكبر تحميد الحمد لله تهليش لا إله إلا الله كلمات كاس ذكر إلهي مالمها نحن ذو بديع ما دام مالمها إلهي أكتس أقوين أيه مالمها وحا كتشر يوم عرفة وحا كتشر يوم النحر وحا كسيدا بيسو كحيكتا مالين تكويو التمنات يوم القرل وحو النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرل مالمها إلهي أكتس وحا أقوين مالنت يوم النحر ومالنت طبنات وعيد وحولها لقلها والدنيا الدافه ديق الضادين ايوه إلهي دتي لو ضادين ايوه ومالنت عملك حجك ugu balaaran yahay ugu weyn yahay waxa ku xiga maalinta ka dambaysa yawmul qarl ilaa yawmul qarl waxa loogu magacaabay waa maalinta sugnaanta xujaydu ay sugnaanayaan oo aynan ka tagi karin minawil maalinta arafa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam maalinta arafa ma min yawmin akthar min an yu'tiq Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm arafa maalin ilaahay agtiisa ay ka badan yihiin dadka naarta laga xoreeyo ma jira maalinta arafa عذابك ضدك مال الحرية وحا أقبضا مال انت عرفه ضدك إلهي أكتيس عذابك لوغ حرية ووحا ويا مال كاس إلهي سبحانه وتعالى خلقه سوء دوانيا دنوا يليق بجلاله وعظمة سلطانه دوان شو إلهي جلالك سي عظمتي سأقلمه سدو يهينا أنه آنا أقونين بإلهي أسو دوانيا marka ma saa ilaahay malaa'ikta ugu faanaya oo leeyahay fiiriya adoomadayda daafaha adduunka ka yimaadeen ayagoo boor laho basaasan
markhaati waxaan ka noqotaan inaan dembigoodii dhaafay hadday niyadda kaaga jirtay meesha Carafa inaad taagan tahay sanadkan oo sanadkii hore ku xisaabtamaysay caqabadna ay kugu timid niyadaadii wanaagsaneed ajarkeedii baa leedahay waxa aad rabtay inaad ku xajisidna masaakiinta iyo fuqarada si oo bixi masaajidda iyo khayrka ku dar khayrka uga qayb qaado ajarkaagiina waa leedahay sanadka dambe haddaa gaartidna aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu fududeeyo oo ay kuu sahlanaato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablahu waalatii bacdah ilaahay siyaamka yowma carafa aan soomayo waxaan ku ajar xisaabsanayaa ilaahay sanadkii hore dembigiisa inuu igu dhaafo midka ka dambeeyana ilaahay igu dhaafo ayaa soonka maalinkaas yowmu carafa aan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oga ajar xisaabsanaya maalmahaas qaaliga ah oo bishaa barakaysan ku dhex jira waxa weeyaan waxay u baahan yihiin qofku inuu ku talagalo inuu istighfaar iyo toobadkeen iyo khayr iyo wanaag ula yimaado waxaa la yidhi maalmahan iyaga ah ahlu cilmigu maxay adduunyada maalmaheeda ugu fadli bateen waa maalmo ay ku kulmi karaan ayaga dhexdooda soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo xajkii laakiin maalmaha kaloo adduunyada soonkii waa la heli karaa sadaqadii waa la heli karaa salaadii waa la heli karaa laakiin xajkii lama heli karo marka xajku asagoo intaas kala wata wuxuu ku jiraa maalmahan buu ku dhex jiraa walidaalika abu ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo fadligiisa qof kaste oo mu'min ah qalbigiisu wuxuu u hiloobayaa oo jecel yahay sanad kaste inuu kacbada ilaahay tago ayaa qalbigiisu jecel yahay meel kasta oo adduunyada ka joogo qalbigiisu wuxuu jecel yahay inuu ilaahay beydkiisa tago soo arko kuna soo cibaadaysto dadkii maadaama aysan wada awoodin ayaa qofkii awooday waxaa la yidhi adiga sanadkii hal mar buu kugu waajibay xajku tag noloshaada hal mar kugu waajib waana awoodaa tag adiga asagii xagga markuu aaday inta ka hartay baa badan ayagiina waxaa la yidhi 10 maalmood waa 10 waxaa laga dhigay adduunyada ugu fadliga badan xaajigii xaggu jooga adiguna gurigaaga adoo joogtid camalka aad samaynaysid wuxuu noqonayaa kan mujaahidku uu sameynaya mid ka fadli badan maadaama qalbigaaga xagga jiciyaha aadan joogin acmaal mudaacafaad ah oo fara badan oo laalaaban ayaa lagugu siinayaa maalmaha furaska laga faa'iidaysto maalmaha waxaa ka mid ah qiraa'atu alqur'aan akhriska qur'aanka in aad loo badiyo oo qofku qur'aanka isku dayo in wax badan akhriyo waxaa ka mid ah dikriga ilaahay takbiirta iyo tahliisha iyo taxmiidka inuu badiyo qofku laa ilaaha ila allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه كل اليوم بديو وحكم إذا الصدقة قفوا إنه واحد بحيه أو سيدي واحد بحين كذا سكبرا خير كان والله بالله وكد داله وحويان مساكين تينو قوديو حكم إذا الصيام صومكي وفضل سؤال وين بدأ هي كل جود بالصوم سجال كالصوم إلا المانطة طبعاً ما سوي كرتيده وعيد صون الله بقى تنكذب بيسنا وعيد تنكذب بيسنا وعيد صون كبرك وحى صون طا مع المها سجالك إلى عرف اللي جاري صون كصون قرآن كأخذ كسبادي صدقة بدي صاحب هذا صومن أفوري خير كإسجاء وحكوسه اللي هي هذا عن كعبد إلهي تجين جهاد كينا أنجلين إلى ديالتي فضل جهاد كولها متكوي إلهي كوسيه سبحانه وتعالى إلهي أطوّت كان وحي دم كان دعي وحي حمان كان دعي مع المهان مع المقالي وصوص عدوية فرصة يا وقت سي وقت جاء كم ده إلهي نبري إنه كوافتيه سبحانه وتعالى
إلهي سبحانه وتعالى هنا بركيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.